السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد علي أكاديمي وعشر كيسي ديدات عشر كاسو ريفيشن مراجعة وعشر كنا مانتو وحو كساب سنيهي present continuous marka waa maxay present continuous ama maxay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay verb ing hore waxaynu u soo qaadanay past present and future marka present continuous verbti waxa lagu darayaa ing waxaana la xidhiidhaa mustaqbalka aynu isla eegno tusaale present continuous waa ficil hadda sameynaysid oo aan dhammaan verbtuna waxay lagu sii darayaa ing mathalan writing aynu eegno sentencekan tusaalaha ah I am writing a letter waxaan qorayaa waraaq You are listening to me now. Hadda waad i dhegaysanaysaa. He is watching TV buu daawanayaa. Isagu TV buu daawanayaa. They are studying now. Hadda iyagu waxbay baranayaan ama waxbarashay ku jiraan. We are doing homework. Annagu homeworkii baanu samaynaynaa. We are doing homework. tusaalaha ugu dambeeya it is raining now hadda roob baa da'aya it is raining now waa ficil aan dhammaan oo hadda socda it is raining now hadda roob baa da'aya halkaana tusaalahaas ay noogu dhammaaday aynu eegno qaybta kale casharka qaybtan kale waxay ku saabsan tahay dialogue between Ali and Ahmed wada hadal u dhaxeeya Ali iyo Ahmed aynu bilaabano Ali baa yiri what are you doing today maanta maxaad samaynaysaa jawaabtii Ahmed I am just reading a book and listening to Quran waxaan akhriyayaa book Quraanna waan dhageysanayaa Ahmed baa su'aal weydiiyay Ali wuxuu yiri what about you adigana Ali baa ku jawaabay I am going for a walk now hadda waxaan aadayaa lug ama waan soo lugaynayaa later I am going to work kadibna shaqaan aadayaa later I am going to work Ali baa weydiiyey what else are you doing later maxaad kale samaynaysaa kadib Ahmed baa ku jawaabay no sleeping for me hurda iima taal I have exam soon imtixaan baan leeyahay dhawaan Ali baa ku jawaabay okay what are you studying hay maxaad barataa Ahmed baa ku jawaabay I am studying English baan bartaa English baan bartaa Ali baa weydiiyey Ali baa yiri you are busy mashquul baa tahay good luck guul baan ku rajaynayaa Ahmed baa ku jawaabay thank you halkaasna waxay noogu dhammaaday qaybtii dialogue aynu u gudubno qaybta dambe ee casharka halkan waa hal su'aal what are you doing now hadda maxaad samaynaysaa adiga lagaaga baahan yahay jawaabta I am maxaad hadda adigu samaynaysaa halkaa ku soo qor commentana nagula wadaag waxaad hadda samaynayso I am miyaad are you watching are you listening waxaad samaynayso marka adigu lagaaga baahan yahay inaad dhamayso sentenceska casharkana intaasuu inoogu eeg yahay intaynu ku kulmi doono casharkeena xiga assalaamu calaykum